maxamed cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay golaha gurtida ee Somaliland waxaana maanta saakaan kula kulanay magaalada Hargeysa bal waxaan wax ka weydiin doonaa arrintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay ee ahayd in sanadka 2023 doorashooyinka isku xigaan oo la qabanayo taasi oo ka hor imanaysa bid kordhintii ay sameeyeen golaha gurtida ee Somaliland ee ahayd muddada 2 sano ah xildhibaan maxamed ku soo dhow Ariel TV bismillaahir rahmaanir rahiim waa Ariel TV systemkan ay wax u socdaan imika doorashooyin baynu u diyaar garoobaynaa haddii ay su'aashu tahay madaxweynaha 2 sanadood baa loo kordhiyay sidee sanadkan u wada qabsoonaysaa anigu halka tala bixinna waan ka gelinaayo waxaan leenahay xisbiyada qaranka oo runtii dalkan horena la xijeclo uga qabay damac kursi siyaasiyana doonayay inay hantaan maantana kii uu taagan yahay oo waajib ay tahay inay gutaan shuruudaha laga baahan ay buuxiyaan waxaan u soo jeedinaynaa hadday xukuumadda tahay iyo hadday xisbiyada tahayba horta qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waxa isjiidadka had iyo jeer haddii 2 sano laga hadlayo in la gaadho iyo in la dhaafoba waxay ku xiran tahay hadba marxaladda taagan sidii looga gudbo marka taladan u soo jeedinaynaa asxaabta qaranka waxa weeye inay aqbalaan maadaama maanta aynu diiwaangelintii galayno oo diiwaangelin loo dareerayo waxay diiwaangelintu socotaana ay bisha ugu horeysa sanadkan ay tahay December sanadka cusub bishiisa koobaad ay dhamaanayso wixii kale ku xiga waa inay doorashooyin dhacaan marka waxaan u soo jeedinaynaa mar haddii procedure-ku yahay ururadii 13 kaasi ay taagan yihiin waliba xisbiyada mucaaradka talada waxaan ugu soo jeedinaynaa inay aqbalaan inay ururada la tartamaan 13 urure 10 ururada cusub ay imika jira oo aanay horta ka baqan runtii taawa taladan soo jeedinayno way golihiina gurtidina wuxuu kordhistay muddo madaxweynaha wuxuu kordhisay muddo 2 sano golaha gurtida ayaa khalkhal gelinaya dalka miyaan la oran karin maxamed maya golaha gurtidu khalkhal ma geliya anagu kiniinka xumad jabintaanu siinaa dadka hadiya jeer dhakhtarku markuu dawada qorana maalinta koobaad iyo talabaad iyo saddexaad midnaba dawadu waxa ma tarto muddo loo qoraa muddadii aan ugu qorreebay socotaa imikana dawada qof waliba wuxuu soo dareemayaa inuu caafimaad ku soo dhow yahay halkii la tagay maadaama diiwaangelintii imika socoto waqtiga ku xigaana waxa weeyaan doorashadii soo horreynaysaana haddii la doonayo inay waxay noo soo ururaan sanadkan ugu soo ururaan doorashooyinka soo socda waxay ku xiran tahay inta la isla aqbalo wixii xaqaa'iq jira oo xisbiyadu aqbalaan in doorashada ururadu la galo ta madaxweynaha marka la yiraahdo intee ka dambeynaysa tan ururada intaas baa dhiman marka waxaan is leeyahay dawada sidaan uu qorray way u shaqaynaysaa waa diiwaangelinta iyo in dadkeenu u diyaar garoobo dhammaan shacabka Somaliland waxaan leenahay horto ama gobol iyo degmo iyo tuulo intuba waxa ay ku xirantay diiwaangelinta ay galeysaan waxa noloshiinoo dhan baa ku xiran haddii waxbarasho aad doonaysaan iyo hadda caafimaad doonaysaan iyo hadda biyo doonaysaan iyo hadda adeegyada bulshada doonaysaanba deegaan walba tirada dadka u diiwaan gashan baa lagu baysgareyn doonaa marka haddaad berrita ka cabato maantana marka la doonayo in la ogaado xogta degmada ama tuulada ama gobolka la doonayo xogtiisa in la helo oo aad ka seexato berritana aad ka cabato adeegyadii bulshadu waxa adigu isgaarsiisun baa runtii ayaa kugu dhacaya marka waxaan ku baraarujinaynaa shacabka Somaliland gobol iyo degmaba inay u kacaan balorta doorashadu ha dambayse masiirkooda rasmiga ah baa ku xiran inay isdiiwaangeliyaan oo la helo xogtooda rasmiga iyo dadka tirada population ku nool meel walba marka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan gaar ahaan waxaan si gaar ah u la hadlaynaa gobolada bariga oo runtii aan inta badan diiwaangelintu duruufo badan oo jiray dartood aanay ka qabsoomin sool iyo sanaag qaybo badan oo kamid ah ayaa diiwaangelinihii hore oo dhan ka haray marka iyagana waxaan leenahay wax waliba waxay ku xiran yihiin haddaad siyaasadda doonayso inaad saameyn ku yeelato iyo haddaad doonayso inaad dadka Somaliland qayb ka noqotaba waxay u baahan tahay inaad isdiiwaangelisaan